بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسرائيليينتي oo yarkooda iyo weenkooda afka ay furteen buuq iyo khaylo arintaas ay isla taagi doonaa waxay tahay iyo waxay afka la furanayaan sidaas oo kale xuutiyiinta oo soo hadlay Soomaaliland ay ka hadlayaan arintan oo isla taagi doonaa in Netanyahu wuxuu leeyahay hada saad u baahan tihiin Soomaaliland anagana u baahanahay muxuu u baahan yahay baahida muxuu ku tilmaamay ee Soomaaliland qabto iyo tan Israa'iil ay qabto وأزولتها أيضا وحنسكو بالله إن أخبارتن لا يبقى له هري لو شيء أنك هذا لكن حوجا أذيك حدنا قد كبحري حد يسول الله بطي وحيت هاي جدي فانس وحليه هاي إلى شروطها إيران وحا كجرة إن مقدول السيو وحليه مركب مقدول العقد سد حد بخل أي سوقرتين إيرانيين سد حد بخل أو بليون ay leeyihiin Iran waxaan doonaynaa ugu yaraan in magdhow ahaan noo siiyo 300 bilyan طيب 300 bilyan adiga wada hadalladii inta Israa'iil waxa la isku celceliyay maya ha sidan kada iyo wixii la midka ugu dambeyn Jared Kushner iyo Steve Witkoff hadal waxay keeneen oo ahaa horan waan uga hadalnay in magdhow ahaan aan lagu tilmaamin oo la dhaho investment yani maalgelin oo shirkada Mareykan ah ayaa maal gelinaya oo kale sidaas in laga dhigo oo hantidaasna Iran la lahaado waa sida hadalkay u dhigeen okay meesha markay mareysay hadda waxa soo bixaysa 300 bilyan qad tahsul Iran وهلي كرتا او هليسا لكن من دول الخليج دول الخليج كايكاليسا دول الخليج اي إيران maal gelin doona سيحجران دولة خليج أي وحي تاجنا يندرات وحن دوننا إيران وحن نقول فتينا مقدونا سيسو إيران وحي لا أذيك السببي وحن يقول عي أو سلجدي إني على غزو الدوري هودي إني بديه إني وحنا متكا مقدونا إذن كربا سيدا سكر مريكان وكربا مركب مريكان أرنتين هذا وسوكو وحي مثلا باشا أنا ما أنا هالكاس خلود أنا ما العقد بوحده هيسته أي لا كربا أي كينا أي marka macna maxay ka dhihi doonaan maxay kula taadiga ileen ogow waxa kala duwan lacagtan anaga bixinayna oo waa sax waan ogolnahay ma anaga bixinayna cidaas ha bixinaysa sida in jeebkooda ay gacanta ku hayaan oo kale dabcan way tahay si hadii loo fiiriyo macnaha khaliijka waxa maamula ama hantidooda marka qaarkiisa sida xataa khubarada ay sheegaan go'aan ka gaara dawladda Mareykanka gaar ahaan Trump markuu ma jiraba Trump waxay uga baqaan si aan caadi ahayn المهم وحي جربا كل وارك دونا لكن اخبار لا ياب له ان لعقتاسي مريكانك او ليهي نعم ايغا بخنايا ولبا مدحوين كحينك ku hadlaaya qaliij ka bixinaya sidaas kale aan u gudubno hal mar Soomaaliland iyo Netanyahu I think it's a friendship that is just getting closer and stronger all the waxaan u maleynaa madaxweyne in saaxiibtinimo mar walba marka ka dambaysa يعني شو دواش دينعنا دعايان فيلايا This is by way of expressing also our appreciation for the fact that you're opening an embassy in Jerusalem. Okay. ولبا تنا waxay tahay yiri inaan idinkaga mahad celino inaad safaarad ka furnaysaan Qudus. Macna Israa'iil waxay uga mahad celinaysaa safaarad in Soomaaliya ay ka furnayso Qudus. Ujeedada maxay tahay? Wasa socotaa. Our ancient capital it is أو ancient capital عاصمتي أوياشينا هذا الكاسي في عن إلى فهم أرين دين كسب سويان أو سودا it is your parallel recognition just as you expect nations to recognize your sovereignty your identity your own أنا حولي هاي سيد أذنك أفيليسان وأرديسان أرادينيسان إن الدونكو إذا أنقونصدوا ودماء إذا أنقونصدان أي أنا نحن أرادينينا إن قدس نو أنقونصدوا إن يتهي عاصمة دي أوياشينا عاصمة دي الدينية هي يهودا rights your own national rights the same thing we have vis-a-vis our capital it's only been the capital of the Jewish people since King David that's only وحين نوته يري عاصمة لقب الله واجي نبي الله داود King David saas u yaqaanaa marka xilligaas ilaa hadeertan noo tahay markaas wuxuu leeyahay 3,000 sano 3,000 years ago 3,000 years ago so
For some, marka arrintan maxay kula tahay israa'iil qudus masjid aqsa eryadaasi dhulkaa barakaysan alladii baaragna xowlah oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala qudustaasi gaar ahaan waxay leedahay waa dhulkeen abadiga ah awowayaashana iska lahaayeen nala raadiya waan idinka mahad celinaya inaad ka furateen safaarad halkan adinkoo muslimiin ah ma falanqeynaayo bal adiga fasiro okay halka waxay dhaheen waxaan horta cambaaraynaynaa somalilan in ay safaarad ku furato qudus oyna imaato waan cambaaraynaa waxaana dabcan aan garab taaganahay walaalaheena soomaaliya aan garab taaganahay guud ahaan sida hadalka u dhigan waa sidaasi kamana yeelayno yahuudda inay beegsadaan qarni afriqi ama geeska africa in ay gabaad ka raadiyaan kamana yeelayno marka almuhim qudus in safaarad ay ka dhigtaan way cambaaraynaya macnaha xuutiyiinta ujeedada waxay tahay waa iska garan kartaa cid walba muslim yacnihi arrintaasi macnaha kuma farxayso haba yaratee okay anuu imaado ugu dambeyn dhiilkii ay israa'iil ka soo horjeeday oo ay naxdinta iyo balaayada iyo walwalka ay ka qabtay oo dhacay nacam caqabada badanaa jira trump xataa waxaa laga hayaa inuu yidhi waa adiga qof ka hor imaanaya ama kasoo horjeeda obstacle ah yani caqabad ku ah dhiilka netanyahu hadda netanyahu wuxuu leeyahay alitifaaq maca iran abramahu trump wahada qaraaruh wanaxnu lana masaalixuna khaasa heshiiska waxaa galay trump waana go-aankiisa macnaha annagana masaalixdeena khaaska aan leenahay hadalkaasi macnihiis waa maxay yani wax naga galay heshiiskan haba yaraatee malahan oo lagu soo koobo weyaan hadalkaasi dheer ayaa lagu soo gaabiyey wahada qaraaruh wanaxnu lana masaalixuna alkhaasa annagana maslaxadeena gaarka aan leenahay maslaxadiisoo aaday annana tanaa aadaynaa okay israa'iiliinta maxay leeyihin marka israa'iiliinta waxay leeyihiin this is a bad news arrintan waa akhbaar xun waxayna ku tilmaamayaan in trump sensigiisa ama maskaxdiisa aynan joogin heshiiskan marka u galayay wuxuu leeyahay soo taan isku ogeen maraykanka iyo israa'iil inay saaxiibo yihiin inay hal wada doon wada saaran yihin soo taan isku ogeen say ku dhacaysaa in annagoo doontaa wada saaran uu trump go-aan iska qaato israa'iilna aynan ka warqabin inuu israa'iil garabkeeda ka baxo oo gadaasheeda intuu heshiis soo galo uu saxiixo say ku dhacaysaa maxay tahay khiyaanadaasi ayna khiyaameen israa'iiliinta marka waxay u arkaan in la khiyaanay saaxiibtinimadooda lagu xadgudbay in laga daneystay bal ay u arkayaan ay leeyihiin macnaha cid laisku halleyn kara maraykanka maahan hadda ogo waa maraykanka israa'iil wax walba u sameeyey lacagta siiya oo siiya maxaan ku dhahaye hubka siiya oo wax walbay samayso isku daboola ee dhaha maya cid taaban karta malahan daaya maxkamadda adduunka ah dembiye ah no xasuuq ah daaya bal bambooyinka isticmaasho maxaakimta waxay keeneen waxay dhaheen kaas waa kii maraykanka kaa waa kii maraykanka kaa waa kii maraykanka ayaa israa'iilta waxay leeyihin no ma aaminayno wayna khiyaaneen xumaanay nagu sameeyeen iyo wixii la midka bal sidee kula tahay intaasaan kusoo koobayaa salaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.